بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idin kugu hayno waxa kamid ah waa Mareykanka oo ka walwalsan duulaan Shiinuhu uu ku qaado jasiiradda Taiwan hadalkan ayaa imaanaya iyadoo dhawaan Trump safar ku tagay magaalada Beijing Ruushka oo ku sheegay hubkiisa nuclearka quwadda looga cabsanayo isla markaasna uusan ka kaftamayn iyadoo ay sii kordhayso xiisadda ka aloosan bariga dhexe ee u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka ayaa waxa soo xoogaysanaya hanjabaadaha labada dhinac ay isu jeedinayaan mas'uul sare oo Iiraani ah oo ka digay in Mareykanku uu ku dhaco shirqool kale oo Israa'iil ay maleegayso taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM oo dhankooda shaaciyay inay sii adkaynayaan go'doominta ka dhanka Iiraan dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir وعند كم هالسنتين داوشة برنامجك ساكا وحين كوب لابينا مريكن كا وحاكتاجن والوين أو لحريرة شينها إنه ويركو قاعدو جزيرة تايوان أو شيء إنه كيف لودي لكن مريكن كا مهم أريتن وحي كسو آدي سايدو دوان دحوناها مريكن كا دونالد ترامب وبوغدي ودك شينها haddaba maxaa ugu dambeeyay amuurtan aynu eegno warar arintan la xiriira oo warbaahinta Mareykanku ay wax ka qorayso la taliyaasha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka cabsi qaba in Shiinaha weerar ku qaado Taiwan 5 sano ee soo socota sida ay sheegtay shabakadda wararka Axios ee Mareykanka laga leeyahay iyadoo tani ay soo baxday kadib booqashadii toddobaadkii hore halkaasi uu ku tagay waa Beijing madaxweyne Trump sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa Axios u sheegay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu isku dayayo inuu dalkiisa gaarsiiyo heer cusub isagoo ku yiri Mareykanka ma nihin quwad soo koraysa waxaynu nahay quwad idin la siman Taiwanna annaga ayaa iska leh waraysi uu siiyay telefishinka Fox News kadib safarkiisii uu ku tagay Shiinaha madaxweyne Trump waxa uu ku sheegay inuusan doonayn dagaal cusub oo ku saabsan Taiwan wuxuuna yiri ma doonayno in cid ay ku dhawaaqdo madax banaani ma doonayno inaan 9500 oo mayl u safarno dagaal Taiwan ayaa waxay sheegatay madax banaanideeda 1949kii kadib dagaalkii sokeeye ee Shiinaha laakiin Beijing wali waxay u aragtaa jasiiradaasi gobol ka fallaagoobay waxaana ay ku hanjabtay inay xoog ku qabsan doonto haddii Taiwan ay ku dhawaaqdo madax banaani rasmi ah warbixinta ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in saraakiisha Mareykanku ay ka walaacsan yihiin saameynta weerar kasta oo ka dhana Taiwan ku yeelan karo warshadaha aaladaha jibka kombiyuutarada iyo moobilada ee caalamka maadaama Taiwan ay tahay xarun weyn oo soo saarta aaladaasi hadda ka hor General ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa isaga qudhiisa wuxuu sheegay inay suurtagal tahay 2027 Shiinuhu inuu ku qaado weerar waxaana xilligaasi uu ka hadlayay generalkan kulan gaar ah oo uu lahaa aqalka Koongareeska ee waddanka Mareykanka madaxdii hore ee Mareykanka waxay oran jireen mar walba waxaynu difaacaynaa Taiwan laakiin Trump waynu maqlaynaa hadalkiisa muxuu leeyahay ma doonayno inaan u safarno dagaal 9500 oo mayl xitaa waxa leeyahay Trump haddii uu heli lahaa inuu yiraahdo Shiinaha Taiwan qaata Ruushkan iyo Ukraine qaado laakiin aniga hal ii daayay Iiraan iyo bariga dhexe arrinkaasi wuu aqbali lahaa laakiin Shiinaha ka yeelayba Shiinaha waa ogyahay gariya gardarraba Taiwan inuu helayo asaga laakiin maxaa u muhiimsan shidaalkan bariga dhexe ayaa u muhiimsan gaar ahaan Iiraan arrintaas marka waxay noqotay arrin muhiim ah weli Shiinuhu war kama soo saarin walaacan dhanka Mareykanka ka yimid oo leeyahay suurtagal waxa ah in markaasi la qaado tilaabooyin weerar oo ka dhana jasiiradaasi Taiwan waa tahay markan waxaynu u gudbaynaa
warbixin kale oo la xiriirta macluumaadyo laga helayo waddanka ruushka. afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in hubka nuclearka uu yahay tiirka ugu muhiimsan ee amniga qaranka ee ruushka, isagoo xusay in awoodda nuclearka ee dalka ay ka ilaalinayso khatar kasta oo halis gelin karta jiritaankiisa. Peskov oo la hadlayay warbaahinta dowladda ruushka ee Vesti ayaa waxa uu yidhi, dal nuclear leh lama hadli karo, jiritaankiisana khatar lama gelin karo. taasi waa waxa ina siinaya kalsooni, waana saldhigga ka hortagga nuclearka. isagoo ka hadlayay xiriirka ruushka iyo Yurub, Peskov waxa uu sheegay in doodaha ku saabsan imika ee soo kordhaya in midowga Yurub suurtagal ay tahay wada xajood uu la yeesho Moscow ay yihiin isbeddel dan u ah ruushka. doodan sii kordhaysay ku saabsan in mar uuna la hadlo ruushka waa arrin wanaagsan, ayuu yidhi afhayeenka aqalka Kremlinka, isagoo ku adkaysay in Moscow aysan mas'uul ka ahayn burburka wadahadallada Yurub iyo ruushka. Dmitry Peskov ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub waa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kaja Kallas aysan u muuqan qof ku habboon wada xaajood lala gala ruushka. hadalladan ayaa ku soo beegmaya kadib markii madaxweyne Vladimir Putin toddobaadkan uu sheegay in ruushka uu horumarinayo nidaamyo nuclear oo hub ah oo aan dunida cid lamada haysan, isagoo xusay in Moscow ay dardar gelisay hubka casriga kadib markii Maraykanku ka baxay heshiiskii ka hortagga gantaalada ee la gaaray sanadkii 2002. waxaana madaxweyne Vladimir Putin arrintan uu ku macneeyay inay tahay arrin ruushka uu xoojinayo awooddiisa dhanka nuclearka. hagaag macluumaadkaas halkaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa haatan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Maraykanka iyo Iiraan ka dhex alo hadallo adag oo xanaf leh ayaa la isweydaarsanaya. Sacuudigana waxaa laga soo warinayaa in habeennimadii xalay weerar lagu qaaday iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha droniska. arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay la weeraray warshadda nuclearka oo ku taal dalka Imaaraadka Carabta. wadamadii khaliijka balaaya u timid. arrinka kale la yaab kale waxa weeye diyaaradaha droniska oo iska socda. macluumaadkaas intaan u gudbin iyo weliba qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiin. soo dhawaada markana daawadayaal, xaaladda bariga dhexe gaar ahaan xiisadda Maraykanka iyo Iiraan ka dhex aloosan haddii aynu qooraansanno. waxaa soo baxaya suurtagalnimada weerar Maraykanku uu ku qaado Iiraan, iyadoo la sheegayo in Maraykanka iyo Israa'iil la diyaarinayo qorshayaasha militariga. waxaana arrintan ku laran hadallo adag oo isdhaafsanayaan dhinacyadani. haddaba dhanka Iiraan aynu ku horumarnaya taliyaha sare aan ku celiya la taliyaha sare ee hogaamiyaha kacaanka islaamiga ah ee Iiraan Ali Akbar Velayati ayaa uga digay Maraykanka in uu ku dhaco sida uu yiri daban istaraatiijiya oo Israa'iil ay dejisay iyadoo ay sii kordhiyaan hajabaadaha ka dhanka Iiraan. Velayati waa sidoo kale xubin ka mid ah golaha go'aaminta danta qaranka Iiraan. qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayaa waxa uu ku dhaliilay tillaabooyinka dhanka diblomaasiyadda iyo hadallada sii xoogaysanaya ee ka imaanaya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku wajahan Tehran. wuxuu ka digay in iska hormaad militari oo cusub uu Washington ku yeelan doono cawaaqib siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed oo aad u ballaaran, sidoo kalena uu saameyn doono guud ahaan galbeedka Asia oo Iiraan ay u taqaan bariga dhexe. in lagu dhacaa godkan iyadoo la adeegsanayo xarigga Israa'iil waxay leedahay qiimo culus, ayuu yiri Velayati. dhowaan Washington waxa ay sheegtay in markaa ay kordhin doonto awooddeeda bariga dhexe gaar ahaan marinka Hormuz, arrinkaasi oo Iiraan si adag ay uga digayso. dhanka Maraykanka, taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ee CENTCOM ayaa xaqiijiyey in ay fulinayaan wax ay ku tilmaameen go'doomin buuxda oo ka dhan ah Iiraan sababa la xiriira Iiraan inay ku adkaysanayso xiritaanka marin biyoodka Hormuz, arrinkaasi oo la sheegay inuu halis ku yahay waa sida Maraykanku ku doodayaan xorriyadda maraakiibta caalamiga.
waraysi uu siiyey warbaahinta afhayeenka CENTCOM Colonel Timothy Hawkins ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay leexiyeen in ka badan 80 markab tan iyo markii la bilaabay howlgalka ka dhanka Iran, isagoo xusay in Washington ay si dhow ula socoto wax kasta oo isku dayaya in Iran ay galaan ama ay ka baxaan. Hawkins ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay diyaar u yihiin qorshe kasta oo degdeg ah, isagoo xusay in xiisadda gobolku ay sii xoogaysanayso. afhayeenka ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa waxa kale oo uu sheegay in howlgallada militari ee Mareykanku ay si weyn u wiiqeen wasiirka u dhigay awoodda militari ee Iran, gaar ahaan soo saarista hubka, gantaalada iyo droniska. Hadaladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo marin biyoodka Hormuz uu wajahayo xiisad sii kordhaysa oo saameysay maraakiibta iyo suuqyada shidaalka ee caalamka. Marinka Hormuz ayaa ah marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka dunida, iyadoo qiyaastii 5 meelood oo meel shidaalka caalamku halkaasi uu ka gudbo. CENTCOM ayaa waxa kale oo ay sheegaysaa in howlgallada Mareykanku ay yareeyeen hubkii gaari jiray waxa ay ku tilmaameen kooxaha Iran ay taageerto. mana jirta deymo rasmi ah oo Mareykanku uu soo bandhigay. isla wararka Iran aynu dib ugu laabanay, Iran ayaa waxay uga digtay Imaaraadka Carabta inuu sii xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil, iyadoo mas'uul sare oo Iiraani ah uu sheegay in Tehran aysan aqbali doonin tillaabooyin khatar gelin kara ammaanka gobolka. wakaaladda wararka ISNA ee laga leeyahay waddanka Iran ayaa ka soo xigatay Mohsen Rizai oo ah taliye hore oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC, isla markaasna ah xilligan xogayaha golaha danta qaranka Iran, in Iran aysan xirin albaabadii saaxiibtinimada ee ay kula macaamilaysay Imaaraadka, balse wuxuu xusay in dulqaadka Iran uu leeyahay xad. wuxuu yiri, waxaan ognahay in ay jiraan xiriiro iyo isdhaafsi u dhaxeeya Imaaraadka iyo Israa'iil. Imaaraadku waa inuusan isku dhexgelin qorshayaasha iyo dabinnada Israa'iil, ayuu yiri Rizai. hadalka Rizai ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadaha gobolku ay sii kordhayaan kadib dagaalkii dhex maray Mareykanka iyo Iran oo Mareykanka iyo Israa'iil oo isbahaysanaya iyo Iran. Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ahaa bartilmaameedyadii ugu xoogganaa ee weeraradii Iran ay kaga jawaabtay duulaankii lagu soo qaaday, waxaana warbixin dhawaan soo baxay ay sheegayaan in Abu Dhabi laga yaabo inay qaado weerar jawaab celin ah oo ka dhan ah Iran. Tehran ayaa marar badan waxay ku eedeysay Israa'iil inay isku dayayso inay xoojiso saameynteeda amniga iyo militariga ee wadamada Khaliijka, arrinkaasi oo Iran ay u aragto khatar toos ah oo ka dhan ah amnigeeda qaranka iyo sidoo kale xasiloonida gobolka. Iran marka waxay leedahay, Imaaraad dabaad ku ciyaaraysan, joojiya waxaad wadaan. sababtoo ah haddii xiriirkan uu sii xoogaysto oo ciidamo la geeyo ama qalab militari oo Israa'iil ay leedahay Imaaraadka Carabta, arrintu marka way sahlantahay, si fudud ayaa loo weerari karaa marka Iran marka waxay leedahay Imaaraadku waa inay joojiyaan dabka ay ku ciyaarayaan, haddii kale halis bay galayaan. weli degniintan ka soo baxday Imaaraadka ma jiro war rasmi ah oo jawaab u ah oo ka soo baxay dhanka Imaaraadka Carabta. dhinaca kale, dhawaan waxaan idin soo gudbinay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sheegay in Imaaraadka booqasho ku tagay. Imaaraadku isla markiiba way beeniyeen, waxaas waxa kama jiraan. laakiin xalay waxaa soo baxay war la xiriira sababta Netanyahu arrintan u qarxiyay. waxaa jira nin la yiraahdo Naftali Bennett oo horey u soo noqday ra'iisul wasaaraha Israa'iil. doorashooyinka dhici doona waa ninka la filayo inuu aad ula loolamo Netanyahu. ninkiiba hadda waxaa la sheegay inuu booqanayo dhawaan Imaaraadka Carabta. Netanyahu marka arrinta waa ka xun yahay marka. Imaaraadku la hadlay wuxuu yiri booqashadan dib u dhiga. Imaaraadku waxay yiraahdeen maya. booqashadii Netanyahu uu ku tagay Imaaraadka Carabta oo la qarinayay ayaa xafiiska Netanyahu waxay yiraahdeen ra'iisul wasaaraha inta dagaalku u socday bishii Abriil, isaga iyo wariba madax sarsare oo ciidamada Israa'iil ka tirsan iyo sirdoonka ayaa tagay Imaaraadka Carabta. Imaaraadkii waa xaraaqay. wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo qortay bayaan
ay leedahay waxaas waxa kama jiraan xiriir waa leenahay Israa'iil heshiiskii Abraham baynu wada galnay xiriir diblomaasiyad baynu leenahay laakiin waxba kama jiraan wararka sheegaya in Netanyahu safar qarsoodiya uu ku yimid Israa'iil arrintu kuma siimin intaas waxay yiraahdeen madaxa laanta sirdoonka ee Mossad David Bani ayaa tagay waxa kaloo tagay bay yiraahdeen taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir waxa kaloo tagay leeyihiin madaxa laanta sirdoonka Shin Bet ninka loogu magacaabo David Zine iyo waliba generaal ka tirsan ciidanka Israa'iil imaaraadkii dhiiggiisa meel laga saaray mare arrintu meel adag maraysaa maxay ugu tala galeen marka Netanyahu iyo dadka la shaqeynaya imaaraadka in lagu handado inuu joojiyo booqashada Naftali Bennett uu ku tagayo imaaraadka ila ninkan hadii uu tag halkaasi hadda wuxuu dhihi karaa wadamada carabta imaaraadka ayaa kamid ah xiriir fiican baa la leeyahay doorashada ku galaya suuq ku galaya arrintaasna waa arrintii Netanyahu uu suuq ku galay doorashada ku galaya weey arrintu marka meel aad maraysaa waa hagaag Sacuudiga xaray waxa la sheegay 3 diyaaradood oo droonaysa in lagu weeraray waxa la sheegayaa in laga soo riday loona badaniyo dhanka Ciraaq arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay sidoo kale la sheegay in weerar lagu qaaday warshada nuclear-ka farsamaysa waa nuclear-ka hubka ma ahan waa nuclear-ka lagu tala galay korontada iyo imaaraadka carabta ka dhisan warshadan baa la weeraray imaaraadku ilaa hadda kamaysan hadlin cidda weerartay laakiin wararka qaarkood waxay sheegayaan suurtagal inay tahay diyaaradaas droonka inay ka soo kacday Sacuudiga wadamadii marka khaliijka balaaya ka dhex adeeganaysa xaaladdu meel aad maraysaa marka waynu arki doonaa wixii ku soo kordha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh